kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada qodobada wararkayaga caawa ugu waaweyn. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo haatan booqasho shaqo ku jooga wadanka Kuwait ayaa halkaasi kula kulmay guddiga gargaarka tooska ah ee wadanka Kuwait isagoo kala hadlaya sidii guddigaasi uu taageeri lahaa dadkii dhowaan ka barakacay koobihii uu dagaalku ku dhex maray kooxaha al-shabaab al-qaacida iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo haatan jooga magaalada Kuwait ee wadankaasi Kuwait ayaa halkaasi kulan kula yeeshay jaaliyadda Soomaaliyeed ku dhaqan wadankaasi isagoo kala hadlaya dib u dhiska iyo horumarka dalka. gudoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna sii haya xilka madaxweynaha dalka Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu xusayay sanad guuradii ka soo wareegtay qorista farta Soomaaliga. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya General Maxamed Sheekh Xasan Xamuud oo haatan ku sugan wadanka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa halkaasi kula kulmay dhigiisa wadankaasi iyagoo isla soo qaaday xiriirka labada dal iyo sida uu habboon ee loo qalabayn karo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ahna sii haya xilka wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka wadanka Switzerland oo wakiila wadankan Soomaaliya iyagoo isla soo qaaday xoojinta xiriirka labada dal iyo sida ugu habboon ee loo samayn karo arrimihii federaalka. wararkayaga caalamiga ahna daawadayaal waxaa ugu weyn xabad joojin taariikhi ah ayaa lagu soo waramayaa inay magaalada Manila ee xarunta wadanka Filibiin ku kala saxiixdeen dowladda wadankaasi iyo dhaqdhaqaaqa islaamiyiinta ee wadankaasi Filibiin oo muddaba dagaal ku jiray. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa haatana u diyaar garooba goordhow isagii oo fidsan. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo haatan howlo shaqo ah u jooga wadanka Kuwait ayaa magaalada Kuwait kulan kula yeeshay guddiga gargaarka tooska ee wadanka Kuwait iyagoo ka wada hadlay sida uu habboon ee gargaar degdeg loo gaarsiin karo dadkii faraha badnaa ee ka barakacay deegaanadii dhowaan laga xoreeyay kooxihii argagixisada ahaa ee al-shabaab al-qaacida. sida uu ku waramayo wariyahayaga madaxtooyada Bashiir Khaliif Gaani oo haatan la jaan qaadaya wafdiga madaxweynaha. madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada Kuwait City kulan kula qaatay guddiga gargaarka tooska ah ee dalka Kuwait kadib munaasabad qada ah oo madaxweynaha loogu sameeyay xarunta hay'adaasi. kulankan ayaa looga hadlay sida ay guddiga gargaarka u caawin karaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dhinacyada waxbarashada maadaama ay dhowr jeer ballanqaadyo dhanka waxbarashada ah u sameeyeen mashaariic horena ay uga hirgeliyeen gudaha Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa u sharaxay guddiga xaaladda ay xilligan ku sugan tahay Soomaaliya iyo gobolada lagu xoreeyay kooxda al-shabaab sida ay xilligan ugu baahan yihiin dadka ku nool gargaar bini'aadanimo oo dhan walba leh iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in Soomaaliya ay ka soo kabatay dhibaatooyinkii burburka ka soo gaaray loona baahan yahay waqtigan in la caawiyo. danjiraha Soomaaliya u jooga wadankan Kuwait Cabdulqaadir Amiin Sheekh oo kulanka kadib la hadlay TV-ga qaranka ayaa sheegay in la isku afgartay dhammaan qodobadii looga hadlay isla markaana ay xubno ka tirsan guddiga gargaarka tooska ah ee Kuwait ay dhawaan tagi doonaan gobollo ka mid ah dalkeena. hadda waxaan ka soo noqonnay xaflad qada ah ee madaxweynaha loo sameeyeen lajnada loo yaqaano lajnada al-cawn al-mubaashir ninkii madaxda u ahaa Dr. Cabdiraxmaan al-Buxaylaan
waxaa kasoo qayb galay dhammaan madaxdii lajnadaas markii horena madaxa u ahaa doctor cabdiraxmaan sumayd aad iyo aad waa loo soo dhaweeyey eryo fara badan waa isdhaafsadeen gaar ahaan madaxweynaha wuxuu u sharxay xaaladda dalka meesha ay marayso baahida ay maanta jirto waxay ka hadleen dhinaca waxbarashada lajnada barnaamijkeeda ayaa laga hadlay waxaa kaloo aada looga hadlay runtii dhulkii hadda ilaa hadda laga xoreeyey shabaabkii nabadiidkii laga xoreeyey ayay ka wada hadleen baahida maanta dalka ka jirto ayaa loo sheegay waxay ballan qaadeen runtii wax alla wixii daalkooda ah dhan walba inay soomaali ka saacidaan ama ha noqoto dhinaca gargaarka degdega ay loo baahan yahay ama mashaariicda ay hore u sameeyeen iyo kuwa kaloo hadda loo baahan yahay inay dalkii ka sameeyaan intaasoo dhan aad bay usoo dhaweeyeen waxaa laysku afgartay dhawaan insha allah in wafdi ka socdo soomaaliya inay yimaadaan lajnada inay is arkaan wixii baahi ana markaa loo rashaxo loo sharxo kadibna waxay wax ka qaban karaan ay wax ka qabtaan intaa iyayna xafladii kusoo dhamaatay runtii waxay ahayd kulan aad iyo aad u qiimo badan loona baahnaa runtii in lasoo booqdo in lays arko aad baana loogu baahnaa runtii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalmahan ku sugnaa dalka kuweyt halkaasoo uga qayb galay shir madaxeedkii madaxda Arbeed ayaa soo gabagabeeyey booqashadii uu ku joogay dalkan kuweyt iyo kulamadii gaargaarka ah uu la qaadanayay mas'uuliyiinta dalkan iyo xubnaha kale ee shirka ka soo qayb galay iyadoo madaxweynuhuna uu soo ambabixi doono gudaha Soomaaliya. Bashiir Khaliif Gaani, SNTV, Kuwait City. sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud oo haatan jooga magaalada Kuwait ee xarunta wadankaasi Kuwait ayaa kulan kula yeeshay magaaladaasi jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kuwait isagoo kala hadlay kaalinta ay ka qaadan karaan dib u dhiska iyo horumarinta dalka. waa kan wariyahayaga Fiidow Maxamuud Fiidow oo Kuwait ku sugan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kulankan oo la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kuwait ayaa waxa madaxweynaha ku weeliyay kulankaasi wasiirada arrimaha dibadda midka qorsheynta iyo safiirada qaar ee Soomaaliya u fadhiya wadamada Carabta. safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkan Kuwait Cabdiqaadir Amiin Sheekh oo ugu horeey munaasabada hadal ka jeediyay ayaa sheegay in Soomaalida ku nool dalkan ay yihiin dad isku duuban oo mar waliba jecel in ay garab istaagaan dawladda. jaaliyadda keliya ee ka jirta dalka ee muddo 2 saac gudahooda ku ururisay kadib markaan baa u jeedinay walaalahooda ay gargaaraan muddo 2 saacadood gudahooda $40,000 madaxdooda soo dhaweynayo maalin walba ma arkayno meel walba jaaliyada ay ka joogaan soo dhaweynayaan. jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kuwait waa jaaliyadda ugu horeysay ee bilowday in madaxda qaranka la soo dhaweeyo calan iyo wax lagu soo dhaweeyo. sidoo kale gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Kuwait Maxamed Axmed Khumeyni ayaa isna ka hadlay dhibaatooyinka ay ku qabaan dalkan Kuwait. ilaa 2002 saawo dadka ku tahay warbixintii ku qoray waxaa la soo degsay in wadanka dadka ku nool Soomaalida marka waxay taasi iyadoo ku bilaabay xagga caafimaadka baaritaan waxa weeye sharcigu qofku markuu ku soo galo ajnabi yahay waa la baariya caafimaadka laga baariya markii cudurrada faafa laga waayo waxa loo dirayaa haddana xagga mutaqaana amniga labada markii lagu waayo ciqaamad baa loo qoray waddanka inuu dego markii labada loo ogolaado ilaa intuu doono waa joogaya annaga waxaa lagu soo biiray 2000 laga bilaabo in qof kastoo Soomaaliya markii ciqaamadu ka dhacdo la yidhaahdo dib waxaad u soo bartaa caafimaad marlabaadii masaddexaad waxaa dhacday mararka qaarkood dad waaweyn oo xanuunsan oo aan kici karin oo sariirta saaran in inta baaraleys lagu qaado la geeyo meesha caafimaadka haddii kale meesha baaritaanka dhiiga haddii kale uusan helaynin ciqaamad hadduusan qofkii ciqaamad ahayna lama daweyn karo oo wadanka kumana noola wuxuu ka mid yahay qof wadanka banaankiisa jooga. Maxamed Axmed Daahir oo gudoomiyaha guddiga qabanqaabada xafladda lagu soo dhaweynayay madaxweynaha ayaa ku amaanay madaxweynaha Soomaaliya sida uu go'an tahay inuu mar waliba dhageysto codka dadka Soomaaliyeed. mudane madaxweyne dhibaatooyinkii dhacay ee dabaqeerada awgeed waxaa maanta madaxweyne u tahay ummad rabta dawlad laakiin dhaqmaysa habkii dawladnimo iyaga og baahida ay u qabaan dawlad shaqaysa waxaana tusaale noogu wada filan markii dadkii Soomaaliyeed ay ku noolaa koonfurta Suudaan
jubba loo baahday in loo gurmado ma jirin maamul goboleed ama qabiil u gurmaday ama xitaa u qaylo dhaamiyey laakiin waxaa jirtay dowlad soomaaliyeed oo u gurmatay kuna guuleysatay. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo khudbad dheer ka jeediyey kulankaasi ayaa u sheegay xubnaha jaaliyadda soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan sida dalkooda horumar uu u gaari lahaa isagoo uga warbixiyey halka ay marayaan dagaalada lagula jiro argagixisada al-shabaab. dowladdu barnaamijay leedahay la yidhaahdo barnaamijka xasilinta ama afka qalaad ingiriisi stabilization. barnaamijka xasilinta wuxuu ka koobnaa dhowr fays oo isku xigxiga oo kala horeeya waay. mar allaale iyo marka deegmo gobollada ka tirsan dowladdu la wareegto dowladdu waxay diyaarisay dad kooban oo dadka deegaankaas ah oo dowladdu ay isla markiiba meesha inta geyso ay magacaabayso. dadkaasi waxay u xil saaran yihiin in ay sida aada la wada socotaan idaacadaha ka maqsheen shabaab deegaanada markay ka baxayaan dadka waa ka wadaan dadkana waa ka wadaan tahdiidna waa ku reebaan haddaad la macaamishaan gaalada murtadiinta waxay dhalan doonaan iska jir. degmooyin badanaa la tegay oo markii ciidamadii meesha ay tageen ciidamada dadkii ay wax ka gadan waayeen war dukaamanka hala furo oo waxaa nalaga gato lacagan wadana waa talaa maya maadaga dukaanka intaad jabsataan wixii idin anfaca kala baxa laakiin annagu intaan idiin furno idinlama mucaamili karo oo cabsana oo nimanku waa tageen mana soo noqonayaan nagaabaded ma jirto. marka dadka horta xilliga cabsidaasaa lagu beer in badanoo ka midana magaalooyinku waa laga bixiyey. 4 qofood oo degdeg maamul degdeg ay dowladda u magacaabaysaa degmo kasta oo la xoreeyo. 4taas qofood waajibkooda wuxuu yahay dadki inay ku soo celiyaan deegaanka isugu yeeraan inta joogta ay la hadlaan odayaasha dhaqanka iyo dadka mujtamaca dhexdiisa magaca kule inay u yeeraan dadka deegaanka lagu soo celiyo isla markaasna ay dadka ka dhex furaan dhibaato hadday jirta iyo dib-u-heshiisiin iyo abaabulaan dadkii guddiga nabadda la yiraahdo inay dhisaan guddiga nabadda la yiraahdo degmadu ay leedahay inay dhisaan guddigaasi inuu markaa noqdo ka dadka isku keenay isku soo celinayo isla markii in ay ciidamo amni oo deegaanku leeyahay la dhiso muddo 2 bilood ah in ay dadkaasi sidaa abaabulka u shaqeeyaan. 2 bilood ka bacdi fays kala la gelayaa oo dadka deegaanka inay inta isku yimaadaan wada tashadaan ayagoo dadkan dowladdu ay keentay dadka xilka kala wareegi lahaa ay la yimaadaan. dowladduna ay hay-adaha samafalka iyo mucaawanadii geyso iyo 5 mashruuc oo degmo kasta in laga qabtaa ay tahay. 5taas mashruuc waxa waaye degmooyinka oo dhan inay ka sinaadaan qaaraa ka badan lahaan doono laakiin waa hal iskuul hal muxuu bar caafimaad ceel biyood police stationka iyo maamulka degmada. 5taas mashruuc immediately in haddii ay dhisan yihiinna dib loo hagaajiyo haddii ay baaba'san yihiinna la dayactiro. madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dalka kuweyt ku jooga booqasho isagoo ka qaybgalay shirkii madaxeedkii jaamacadda carabta ee sanadkan lagu qabtay dalkan kuweyt. fiidow maxamuud fiidow telefishinka qaranka soomaaliyeed al kuweyt. gudoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ahna sii hayaa xilka madaxweynaha dalka brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa ka qayb gala munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay sanad guuradii ka soo wareegtay markii la qoray farta Soomaaliga sida uu ku waramayo wariyahayaga Mustaf Maxamed Xiiri. munaasabadan oo lagu xusayay 40 guuradii ka soo wareegatay ololaha la dagaalanka akhriska iyo qoris la'aanta farta Soomaaliga ee sanadkii 1972 iyo dib u soo nooleynta ololaha barashada farta Soomaaliga oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin uu ka mid yahay kusimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari kusimaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaare ku xigeen mudane Ridwaan Xirsi Maxamed xubno kale oo ka tirsan labada gole ee dawladda iyo mas'uuliyiin kale oo xafladda lagu casuumay.
ugu horeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in waxbarashada ay tahay halbowlaha ummadda isaga oo shacabka ku baraarujiyay inay wax bartaan si ay ula dagaalamaan jahliga. kusimaha ra'iisul wasaaraha mudane Ridwaan Xirsi Maxamed oo isna munaasabada hadal ka jeediyay ayaa mas'uuliyiinta wasaaradda ugu baaqay inay horumariyaan afka Soomaaliga. ku dardaarmaya oo leeyahay wasaaradda waxbarashadu af Soomaaligii in fawradii bariga la sameeyay oo ilaahay maada ka gaadhay runtii mas'uuliyiintii iyo dadkii ka shaqeeyay ay hawl la yaab la qabteen inaad idinkuna hadda fawra cusub oo labaad runtii aad samaysaan. gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ahna kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo gabagabadii munaasabada hadal ka jeediyay ayaa sheegay in maanta oo kale ay shacabka Soomaaliyeed uga fadhiso ahmiyad weyn isagoo hoosta ka xariiqay in baarlamaanka Soomaaliya uu meel mari doono wax kasta oo lagu horumarinayo afka Soomaaliga. wasaaradda waxbarashada ayaa waxa ay qorsheynaysaa hawlo kala duwan iyada oo kaashanaysa hay'adaha caalamiga waxayna hirgelinaysaa hawlo lagu soo codsiinayo dib u soo celinta barashada akhriska iyo qorista farta Soomaaliga iyada oo la sameeyo doono manaahiij midaysan oo la xiriira siyaasadda waxbarashada dalka oo lagu horumarinayo barashada farta Soomaaliga xirfadda nolosha. Musda Maxamed Xiire, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho. shirka looga tashanayay ka hortagga abaaraha ee dalalka IGAD ee maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta madaxda wadamada IGAD. shirka maanta waxaa si weyn looga hadlay xalka ka hortagga abaaraha iyo sida wadamada IGAD ku mideysan ay iskaashi uga yeelan lahaayeen arrintaasi. sidoo kale kulanka waxaa ku sugnaa wakiilo ka socda beesha caalamka. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa daadihinayay kulankaasi iyadoo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed uu shirkaasi ka jeediyay khudbad uga hadlayay in dalalka IGAD looga baahan yahay waqtigaani in ay sameeyaan maalgelin gobolka oo dhan ah iyadoo la kaashanayo adduunka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa kulanka wadamada IGAD maanta ay ku soo gabagabeeyeen magaalada Kampala kadib waxa uu warbaahinta dawladda u sharaxay natiijadii ka soo baxday shirkii madaxda IGAD ee Kampala lagu soo gunaanaday. shirka aan ka qayb galnay waxa weeye waa shir aad muhiim u ah oo isugu yimaadeen madaxda dalalka IGAD ee toddobada ah. shirkaas oo aasaaska loogu dhigayay wax ka qabashada iyo ka hortagga abaaraha. sida la socotaan gobolkan waa gobol marar badan ay waxyeello ka soo gaareen abaaraha sida tii ugu dambeysay 2011-2012 oo dad badan ay waxyeeloodeen ku dhinteen ku qaxeen ku xoolo beereen. marka madaxda IGAD waxaa isugu timid iyadoo shirkan uu ku horeeyay shirar kale sidii runtii la isaga kaashan lahaa jawaab goboleed iyo mid caalami ahna looga bixin lahaa u diyaargarowga iyo wax ka qabashada abaaraha. abaaruhu mar walba waa wax dhaca
oo lama joojin karo xag ilaahay bay ka yimaadaan roobkaa yaraada daadad baa dhaca laakiin waa in dawladuhu ay yeeshaan awood dadkuna yeeshaa awood ay wax kaga qaban karaan marka abaartu ku dhacdo oo looga hortago markaa in xooluhu le'daan ama dadku le'do ama uu qaxo marka arrimahaas ayaa looga wada hadlayay waxaana la isla gartay in marka koobaad si wada jira arrimaha looga qabto oo la iska kaashado lianna abaartu ma aha mid dal keliya ku eg waa mid gobolkao dhan saamaysa marka labaadna in maalgelin lagu bixiyo sidii loo horumarin lahaa infrastructure-ka ama kaabayaasha wax ka tari karaa in abaaraha wax laga qabto sidoo kalena reer guuraaga la siiyo gacan sida wadooyin iyo taageero kale si markaa xoolahooda ay u iibgeeyaan oo ay u iibsadaan marka howlo badan oo arrintaa la xiriira laga wada hadlay waana isla meel dhigay in si wada jira wax looga qabto dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa la kulmay dhigiisa dalka Itoobiya waxayna si aad uga wada hadleen xiriirka labada dal iyo horumarada laga sameeyay howlgallada ay hogaaminayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo gacan militari ka helaya ciidamada AMISOM sidoo kale waxay ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga dhinaca dhaqaalaha ee wadamada Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliya sida uu ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed mar kale telefishinka qaranka u sheegay shirka wuxuu ku saabsanaa runtii inaan iskaga warbixino waxyaabaha hadda ku soo kordhay dib u xoreynta dalalka gobollada iyo degmooyinka shabaab ay ka talinayeen taasoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo AMISOM ay iska kaashanayaan gaar ahaan gobollada koonfureed oo dowladda Ethiopia ay gacan ka geysanayso iyadoo ka mid ah ciidamada AMISOM labadana dhinacba runtii waxaan ku faraxsanahay sida hawsha ay u socoto ra-iisul wasaaraha Itoobiya runtii wuxuu aad u ammaanay geesnimada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sida ay howlaha u hayaan wuxuuna ku bogaadiyey arrintaas inay sii xoojiyaan oo ay sii wadaan waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo amniga sidii loo sii xoojin lahaa taasoo runtii aan is-afgarad buuxa ka sameynaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hoteelka uu ka degan yahay magaalada Kampala ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Kenya Amina Maxamed iyadoo ay ka wada hadleen xaaladda qaxootiga Soomaalida ee dalka Kenya ku sugan sidii xal looga gaari lahaa dib ugu celinta dalkooda iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu sheegay in labada dawladood iyo beesha caalamka ay iska kaashanayaan sidii qaxootiga Soomaalida dib loogu celin lahaa dalkooda Faisal Muuse Maxamed telefishinka qaranka Kampala Uganda wasiirka wasaaradda gaashaandhigga General Maxamed Sheekh Xasan Xamuud oo haatan ku sugan boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa halkaasi kulan kula yeeshay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee wadankaasi iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo sida ugu wanaagsan ee loo qalabayn karo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Sheekh Xasan Xamuud oo goor dhaweey taleefanka kula hadlayay idaacadda iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV ayaa yiri runtii aniga iyo waqtiga aan hogaaminay maanta saacadda markay ahayd 5 saac bar waxaan la kulanay dhaxal sidaha dalka Sacuudi Arabiya al-Amir Salman bin Abdul Aziz ahna ra'iisul ku-xigeenka iyo wasiirka difaaca wuxuu ahaa booqasho rasmi ah oo ii fidiyey dhigayga wasiirka difaaca mamlakada Sacuudiga ayuu ahaa runtii yani waxaan iska soo qaadnay mahadcelin ballaaran aan u jeedinay waxyaalaha ka soo qaadnay waxay ahayd inaan si gaar ah uga mahadcelinay dowladda Sacuudiga 20 sano iyo dhowr 20 sano burburka jiray siday u tacasiinaysa shacabka Soomaaliyeed mararka ay dhacaan dhibaatooyinka maaragtay ku saabsan abaaraha iyo fatahaadda waxaan kaloo uga mahadcelinay xamladii lagu gacan siinayay abaarihii dhacay 3 sano ka hor ee
boqorka dalka khaadim xarmeyn shariifeyn almalik cabdallah bin cabdilcaziiz oo u fidiyay yani oo xamladii ku saabsaneed in la gargaaro soomaalida oo dadka ka soo gaaray abaarihii iyo fatahaadihii marka waxaan kaloo oo iska soo qaadnay safiir cusub ay u magacaabeen door dhow oo dowladda soomaaliyeed ay ogolaatay safiirkaas oo fadhigiisa noqon doono yani safiirka fadhiya nairobi oo haddana wakiil ka noqon doono cilaaqaadka soomaaliga taasoo aan uga mahadcelinay inay tahay mid wax weyn ka taraysa xiriirka labada dal waxaan kaloo u bandhignay xaaladda dalka uu maraya maanta hadday ahaan lahayd dhinaca bulshada hadday ahaan lahayd dhinaca amniga hadday ahaan lahayd dhinaca siyaasadda hadday ahaan lahayd dhinaca dhaqaalaha waxaan kaloo dhigayga aan ka soo qaadnay yani khataraha ka imaan kara maanta haddii ay soomaaliya ay kusii jirto dhibka hadda ay ku jirto oo runtii ah yani dagaal joogto ah kooxaha xagjirka ah iyo ciidamo shisheeye oo wadankii joogaan marka runtii aad iyo aad baan isku ra'yi aan u ahayn sidii maarata naloogu gacansiin lahaa in ay soomaaliya ay mar dambe lagu istaagtay gaar ahaan shaqo abuurka gargaarka iyo mashaariic oo wax ka qabadka taariyaasha dhaqaale iyo guud ahaan maarata yani gacansiinta hay-adaha amniga runtii aniga dambaal oo afka ayaan ka waday oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud salaantiisa aan gaarsiiyey iyo rajada uu ka leeyahay dowladda sacuudiga inay soo garab istaagto oo ma ahayn aniga kulley wasiirgaasaan dhigo arrimahagaasaan dhigkay u socday maan ahayn laakiin mas-uulkii hadda ilaa xilligan dowladdan igu sareeyey ee la casuumay ayaan ahaa marka waxaan u hadlayay guud ahaan yani sida ummadda soomaaliyeed wax loogu qaban lahaa ujeedo xilka qaadis ku gudoomiyaha degmada ku gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada ku gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ku gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha ku xogayaha dowladda hoose ee degmada ku taliyaha ciidanka dowladda hoose ee degmada ku gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose og taliska ciidanka booliska soomaaliyeed og hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka og ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya og madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ujeedo xilka qaadis wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka markuu arkay dastuurka ku-meelgaarka ah qodobkiisa 99aad xarafkiisa ga markuu arkay arrimaha soo socda ba cabasho aad u badan oo dadweynaha ku nool degmada afgooye ta isqabqabsiyo iyo khilaaf joogto ah oo u dhexeeya maamulka degmada dhexdooda iyo kan gobolka ja warbixino laga helay hay-adaha amniga heer qaran ref ha ta xariijin ha sa na kha xariijin 42 eber xariijin 14 ee 10 maarso sanada 2014 ref xariijin ha jiitin ba xariijin 16 2014 ee muqdisho 12 bisha 3 2014 oo dhammaantood tilmaamaya khatar ka timaada amniga degmada haddii isbeddel maamul uusan dhicin waxa uu go'aamiyey in xilka laga qaado xubnaha magacyadoodu hoos ku qoran yihiin 1 mudane cabdulaahi axmed iidey gudoomiyaha degmada afgooye 2 mudane mahdi axmed xasan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada 3 mudane cabdi maxamed iidle gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada 4 mudane cumar maxamed macallow gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha 5 mudane nuurudiin shukri sheekh xogayaha dowladda hoose ee degmada 6 mudane cabdulaahi xasan cabdi taliyaha ciidanka dowladda hoose ee degmada afgooye sidaas darteed waxaa la idinku wargelinayaa in aad sida ugu dhaqsiyaha badan diyaarisaan xil wareejinta kuna wareejisaan mas-uuliyiinta loo soo magacaabay xilalka la idinka qaaday sidoo kale gudoomiyaha gobolka iyo hay-adaha nabadgelyada waxaa la farayaa in ay hubiyaan xil wareejintooda fulin wacan mudane xildhibaan cabdulaahi goodax barre wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ujeedo magacaabis xil wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka markii uu arkay dastuurka ku-meelgaarka ah qodobkiisa 99aad xarafkiisa ga markuu arkay sharci lambar 19 qodobka 6aad ee soo baxay 14 bishii 8aad sanadkii 1963 maamulka gobolada iyo degmooyinka dalka markuu arkay talada odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka degmada afgooye markuu tixgeliyey in lagama maarmaan ay tahay in degmada afgooye loo magacaabo maamul si ku-meelgaar ah u maamula degmada gaarsiiyana bulshada degmada heer ay isdoortaan wuxuu go'aansaday qodobka 1aad in loo magacaabo mas-uuliyiinta magacyadoodu hoos ku xusan yihiin mid walba xilka uu ku qoran yahay si ku-meelgaar ah muddo 6 bilood ah maamulka degmada afgooye 1 mudane xaaji gaabow cusmaan shoobe gudoomiyaha degmada afgooye 2 mudane xuseen jabiil cali
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada degmada Afgooye 3 mudane Ismaaciil Aadan Cadow gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Afgooye 4 mudane Mustafa Sheekh Cabdi Waahid gudoomiye ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha degmada Afgooye 5 mudane Axmed Maxamuud Jaalle xogayaha dawladda hoose ee degmada Afgooye 6 mudane Axmed Maxamuud Ilaal taliyaha ciidanka dawladda hoose ee degmada Afgooye qodobka labaad xeerkani waxa uu dhaqangalayaa marka uu saxiixo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka waxaana wareegtadan ku saxiixan mudane xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka. daawadayaal iminkana waxaad ku soo dhawaataan xubintii joogtada ahaa ee xurnimo oo alaaba aynu ku soo qaadano howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Amisom ay ka wadaan qaar ka mid ah deegaanadii ay ku sugnaayeen kooxihii argagixisada ahaa ee Al-Shabaab al-Qaacida. haddaba dhegeysi iyo muuqaal wanaagsan. gardaraysigoodiyo inaan gubo naftooda ayaan tala ku gooste gardaraysigoodiyo inaan gubo naftooda ayaan tala ku gooste waxay ahayd horaantii sanadkii 2007 marka qaramada midoobay ay ansixiyeen qaraar tirsigiisu yahay 2124 oo lagu ansixiyay in ciidamo ka socda midowga Afrika ay yimaadaan gudaha Soomaaliya kuwaas oo ah nabad ilaalin. waxa sidoo kale lagu ansixiyay tirada ciidamada imaanaya Soomaaliya oo gaaraya 22586 askari oo military ah oo ay dheer tahay 540 ciidamo booliis oo tababaran. waxaan ugu horeyntii qaatay 6 wadan oo safka hore ah ee Afrikaana inay soo diraan ciidamada Amisom ka socda. waxaana kamid ahaa Uganda, Burundi, Kenya, Djibouti iyo Sierra Leone iyo Ethiopia. waxaa loo kala qeybiyay 6 wadan ee ogolaaday ciidamadoodu inay yimaadaan Soomaaliya kuwaas oo ay la socdaan ciidamada militariga ah ee dawladda Soomaaliya ayaa waxaa loo ogolaaday inay ka howlgalaan 6 qaybood. 6daas qaybood oo loo kala qeybiyay gobolada koonfurta iyo gobolada dhexe. waxaa ugu horeyntii kamid ahaa qaybta koobaad ama aaga koobaad oo ay ka howlgaleen ciidamada Uganda oo ahaa gobolka Banaadir iyo Shabeellada Hoose. sidoo kale waxaa jira aaga labaad oo dalka Kenya uu ka howlgalay oo ah gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. waxaa sidoo kale jira labada gobol ee aaga saddexaad loo yaqaan oo ah Bay, Bakool iyo waliba gobolka Gedo oo raacsan. waxaana ka howlgalay ciidamada ka socda dalka Ethiopia oo ay la socdaan ciidamada Soomaaliya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa jira aaga afraad oo ka howlgalayaan ciidamada Djibouti iyo kuwa Ethiopia oo isku darsan oo ay garab socdaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana ay ahaayeen aaga afraad ee gobolka Hiiraan. sidoo kale waxaa jira ciidamada Sierra Leone oo iyagana ka howlgalaya magaalada dekada ah ee Kismaayo iyo nawaaxigeeda. waxaan markan ka bilaabaynaa aaga afraad oo gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ah. gobolka Hiiraan ayaynu ku sii horeynaynaa gorintii. gobolka Hiiraan waxa ku sugan ciidamada Hil Walaal iyo ciidamada Ethiopia waxaana ay garab siinayaan ciidamada militariga ee Soomaaliya. marka hore waxaan ku hormaraynaa aaga afraad oo gobolka Hiiraan iyo Galgaduud ah. waxa marka halka ku sugan ciidamada Hil Walaal oo ka socda dalka Djibouti iyo kuwa Ethiopia. sidoo kale waxa ciidamadaasi ay garab siinayaan oo hormuud ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. waxa gobolka Hiiraan caasimad u ah magaalada Beledweyne waxaana markaas ciidamadu ay ka soo dhaqaaqeen horaantii toddobaadyadii la soo dhaafay oo ah tallaabadii ugu horeysay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee u qaadeen xagga degmooyinka iyo gobolada iyo kuwa Amisom markii ugu horeysay dhaqaaq noocaas oo kale ay sameeyaan. gobolka Hiiraan waxaan ka soo qaadaynaa marka magaalada Beledweyne oo caasimad u ah gobolka Hiiraan ayaa waxa ciidamadaasi dhaqaaq ugu horeeyay ay soo gaareen
tuulada buqa qable waxaana markaasi ay ku sii socdeen ilaa magaalada degmada Buulaburde oo ah meel muhiim u ah waxaana lagu wadaa inay sii socdaan ilaa iyo gobolka Shabeellada meesha ay ka sii galaan ee cadale la isugu tago dhinaca kale waxa ciidamada Hiil Walaal iyo ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaalida militariga xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoo isu wada wada dhinaca kale inay Moqokori iyo Maxaas u sii dhaqaaqi doonaan ilaa intay ka gaarayaan gobolka Galgaduud dhinaciisa kale oo halkaas ay ku sugan yihiin mar kale oo dheeraad oo ka socda dalka Itoobiya dhinaca kale waxaynu tagaynaa gobolka Galgaduud oo ay halkaas ku joogaan ciidamo huwana oo iskaashanaya ka socda ciidamada Amisom oo hor socdaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaasna ay la socdaan ciidamada Itoobiya waxa weeyaan caasimada gobolka Galgaduud oo ah magaalada Dhuusamareeb waxa ka soo dhaqaaqi doona oo soo aadi doona dhinaca xeebta ama deexda dhinaceeda markii la soo aado magaalada muhiimka ah oo ay degan yihiin ciidamada al-shabaab dhaqaaqaas wuxuu ku socon doonaa magaalada Ceelbuur sida arkaysaan dabadeetana marka Ceelbuur laga tago ilaa iyo Mareeg ayay sii socon doontaan dhul xeebeedka dhexda ah halkaas oo laga yaabo meesha ugu dambaysa inay sii dhaqaaqi doonaan ciidamadu ilaa ay ka gaaraan magaalada Xaradheere iyo waliba magaalada Hobyo oo ah meelaha muhiimka la doonayo inay tagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay gacanta ku dhigaan bilaha soo socda inta aan la gaarin bilowga waqtiga roobaadka dhinaca kale waxaan eegaynaa aaga koobaad amaba qaybta koobaad oo ay joogaan ciidamada Uganda iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa tirada badan leh waxa iyaguna ay sameeyeen dhaqaaq ku aadan aagaas oo ah oo hoos imaanaya labada gobol Banaadir iyo Shabeellada Hoose waxa xarun weyn u ah amaba xarunta ama caasimada u ah magaalada Marka dhaqaaqa ay sameeyeen ciidamada Uganda iyo kuwa dawladda oo isgarabsanaya marka ay dhaqaaqeen sida aad la socotaan waxay tageen magaalada Marka geeskeeda hoose xagga xeebta markii laga aado dhulka wadiga waxay tageen magaalada Qoryoole oo aad moodo inay tahay magaalo muhiim u ah dawladda Soomaaliya isla markaana ah meel ku haboon in ay ciidamadu saldhig ka sameystaan si loo kaabiyo ciidamada Kenya ka imaanaya dhinaca kale sidoo kalena ciidamada Itoobiya ayaa wax ka soo socdaan baydhaba iyo labada gobol ee Bay Bakool oo ah aaga shanaad dhinaca kale waxaanu jecelnahay inaanu eegno xagga koonfurta oo ah aaga ama qaybta labaad waxa markaas qaybta labaad mas'uulka ah oo la socda ciidamada dawladda Soomaaliyeed Kenya iyo Sierra Leone waxa weeyaan jubbada hoose iyo jubbada dhexe waxa iyaguna ay dhaqaaq ka soo wadaan dhinaca kale si ay ku soo gaaraan degmooyinka Jilib ilaa iyo Jamaame isla markaana ay ku soo fidaan ilaa Shabeellada ee lagu wado inay habka meesha ugu dambayso la isugu imaan doona noqon doonto sida arkaysaan magaalada Baraawe dhinaca kale waxaynu eegaynaa labada gobol oo muhiimka oo koonfurta ugu muhiimsan oo loo yaqaan aaga shanaad waa Bay iyo Bakool waxa ka orgada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo garabsanaya ciidamada Itoobiya waxa ka jira iyaguna dhaqdhaqaaq todobaadyadii la soo dhaafay sida aad la socotaan magaalada Waajid iyo Xudur ayaa gacanta waxa ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Itoobiya oo ka socda Amisom sidoo kale waxa lagu wadaa in dhaqdhaqaaqa labaad uu noqdo magaalada muhiimka ah ee Baardheere ilaa iyo Buulo Xaawo halka loo yaqaano sidoo kale waxay ciidamada sii socon doonaan labada magaalo oo muhiimka ah aan isleeyahay waxay soo gaari doonaan dhinaca kale waxa weeyaan Saakow iyo Bu'aale oo iyaguna balantu ay tahay in la isugu yimaado ilaa dhamaadka magaalada Jilib oo aad arkaysaan dhaqdhaqaaqaas oo dhan waxa laga yaabaa dhinaca kale markii laga yimaado laftirkeeda oo xagga Baraawe ah ayaa iyadana lagu wadaa in ay markaasi isugu yimaadaan ciidamada jooga Banaadir iyo Shabeellada Dhexe magaalada Baraawe ciidamada kuwanta ee ka soo baxaya dhinaca gobolka Bay iyo Bakool marka ay soo maraan dhinaca Saakow iyo Bu'aale waxa ay imaan doonaan oo balantu ay tahay magaalada Jilib dhinaca kalena waxa ka imaan doona ciidamada Burundi oo waxa ka imaan doona ciidamada Uganda oo iyaguna ka soo socda dhinaca gobolka Banaadir iyo Shabeellada Dhexe oo soo mari doona ilaa iyo Baraawe waxaana lagu bilansan yahay magaalada Baraawe oo noqon doonta xudunta ugu adag ee ciidamadu dhigi doonaan salkooda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ahna si haya xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda Switzerland oo wakiilka ah dalkan Soomaaliya iyagoo isla soo qaaday xoojinta xidhiidhka labada dal iyo sida uu haboon ee loo sameyn karo nidaam federaaliya waa kan Maxamed Cabdullaahi Xaaji wariyahayaga oo kulankaasi goobjoog ka ahaa safiirka ahna ergeyga gaarka ah ee dawladda Switzerland u jooga Soomaaliya Domenico Langabaja
oo maanta tegay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay kusimaha wasiirka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya mudane Burci Maxamed Xamza. Danjira Domenico safiirka dowladda Switzerland ee Soomaaliya ayaa uga mahad celiyay wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya sida uu soo dhaweeyay isagoo sidoo kale wasiiru dowlaha u gudbiyay sidii dowladda Switzerland ay ugu faraxsan tahay booqashadii dhawaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed uu ku degay wadanka Switzerland. waxaa intaa kadib ay wada yeesheen kulan looga hadlayay arrimo kala duwan oo ku qotamay xiriirka u dhaxeeya labada dowladood ee Soomaaliya iyo Switzerland. waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulankaasi looga hadlay waxaa ka mid ahaa sidii dowladda Switzerland ay Soomaaliya uga taageeri lahayd arrimaha federaalka maadaama ay khibrad dheer u leedahay ayna ka mid tahay dowladaha muddada fog qaatay federaalka. kulankan dhex maray wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya mudane Burci Maxamed Xamza iyo danjiraha dowladda Switzerland ee Soomaaliya looga hadlay xaaladda dadka Soomaaliyeed ee dalka Switzerland ku nool iyo sidii halkaasi Soomaaliya ay safaarad uga furan lahayd mustaqbalka. waxaana ugu dambeyntii lagu ballamay sida ay tahay shaqada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee safiirka dowladda Switzerland ee Soomaaliya ay wasaaraddu kala shaqeyso sida ay isku arki lahaayeen qaybo ka mid ah hay'adaha dowladda. Maxamed Cabdullaahi Xaaji, telefishinka qaranka Soomaaliya, Muqdisho. madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Generaal Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa sheegay in firxadka kooxaha Al-Shabaab Al-Qaacida ay haatan soo gaarayaan deegaano ka tirsan maamul goboleedkaasi isagoo dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii kooxahaasi loo difaaci lahaa. waa kan wariyahayaga gobolkaasi Cabdirasaaq Maxamed Axmed. madaxweyne Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo maanta khudbad ka jeedinayay xiritaanka kalfadhigii saddexaad ee golaha baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in Galmudug ay soo dhaweynayaan howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay kula dagaalamayaan kooxda naflacaariga ee Al-Shabaab. waxaana madaxweynuhu sheegay markii ugu horeysay in deegaano ka tirsan Galmudug ay soo gaareen firxadka kooxdaasi isagoona ka dalbaday dowladda Soomaaliya beesha caalamka in laga gacan siiyo Galmudug la dagaalanka kooxdaasi. taageersan gulufka colaadeed oo lagu qaaday Al-Shabaab meelaha dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaateynayeen ay haysteen deegaamada in gacantooda laga xoreeyo waa soo dhaweynaynaa waan horena waa u taageernay haatana waa taageeraynaa. arrintaasi laakiin annaga Galmudug saamayn gaar ah nagu yeelan waxa weeye saamaynta ay nagu leedahay dadkii firxadkoodii ka soo caraaray meelahaas laga soo eriyey annagii oon awood lahayn ayay si xoog leh deegaankayagii ayagiioo hubaysan iyo ayagiioo sacaboolaya laakiin aan ka tanaasulin fidmadii ay dalka Soomaaliya kula dhex jireen ayay soo galeen si xoog lagu soo galeen. arrintaas qaar ka mida waa qabanay xabsiyada ay aada ugu jiraan oo hadda in badan oo ka mida waa la hayaa laakiin awood uma hayno Galmudug maantay. waxaan baaq ugu diraynaa bulshada caalamka iyo UN-ka iyo ummadda Soomaaliyeedba in arrintaas Galmudug gacan inala ka siiyo daadkaasna soo galo nabadgelyo darrada abuuri kara Galmudug iyo dadka la dayskaaba dhibaato ku abuuri kara. si kastaba ahaatee khudbadan uu maanta ka jeediyey madaxweynaha Galmudug xiritaanka kalfadhiga saddexaad ee golaha baarlamaanka Galmudug ay ka qayb galeen gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Xasan Maxamuud Heel xubno ka tirsan golaha baarlamaanka ayaa intii ay socotay waxaa looga hadlay waxqabadkii xukuumadda uu hogaamiyey madaxweyne Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo qorshayaasha u degsan baarlamaanka Galmudug. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka, Gaalkacyo. kulan ay soo qaban qaabisay rugta ganacsiga warshadaha iyo beeraha oo lagu soo dhaweynayay heshiis dhawaan ay kala saxiixdeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda shaqada adduunka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano ILO ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho sida uu ku waramayo wariyahayaga Cabdishakuur Cusmaan Cali. kulankan lagu taageerayay heshiis ay hore u wada gaareen dowladda Soomaaliya iyo ururka shaqaalaha adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
heshiiskaasi oo ka koobnaa 3 qodob ayaa waxaa ka mid ahaa in shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. kulankan taageerada ayaa waxaa soo qabanqaabiyay rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed waxaana ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan iyo marjaraf kale. Maxamed Abuukar Zubeer oo ah gudoomiyaha xiriirka ururka shaqaalaha Soomaaliyeed ayaa ku booriyay dawladda Soomaaliya heshiiska ay la gashay ururka shaqaalaha adduunka. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan shirkan aan qabanayno ku soo dhaweynayno heshiiskii ka dhacay Geneva 20 Maarso 2014 oo aan lagu kala qaybsanayn oo ay joogaan dhammaan ururada shaqaalaha matalaya xubnihii affiliates ka tirsanaa ururadaas oo kala ah xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed iyo isu taga ururweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed oo shirkani si jointly ama wadajir u qabanayo dhinaca kale oo ah loo shaqeeyihii unugii matalaya loo shaqeeyaha oo ah rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed. xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nasaja Maxamed Ibrahim Begistan ayaa sheegay in heshiiskaasi ay faa'iido badan ka dhaxli doonaan shacabka Soomaaliyeed. maanta heshiiskan wax weyn ayuu ka tali doonaa in qof walba oo shaqaale ah ama ha noqdo saxafi ama ha noqdo xamaali oo maaragtay procedure cusub ay iman doonaan oo maaragtay xuquuqdooda lagu difaacayo isla mar ahaantaana maaragtay qofkii shaqada haddii la shaqaalaysiiyana ay sida hadda uu sheegay cabdi ay adkaan doonto xitaa in shaqadii laga qaado uu yeelan doono meel oo reference uu u dacwo tago. gabagabadii munaasabadii lagu taageerayay heshiiskii ay hore u wada gaareen dawladda Soomaaliya iyo ururka shaqaalaha adduunka ayaa waxaa soo xiray agaasimaha guud ee rugta ganacsiga ee warshadaha Soomaaliyeed mudane Cabdi Bashiir Dhoore ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ahmiyad weyn ugu fadhiso heshiiskaasi loona baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan fursadan qaaliga oo ay soo hoysay dawladda Soomaaliya. waxaan rabay kaliya inaan cadeeyo laba arrin oo runtii aad muhiim u ah ummadda Soomaaliyeedna mustaqbalkooda wax ka bedeli doona xuquuq siinta dadka shaqaalaha ah ama abaabulidda iyo ururinta dadka shaqaalaha ah macno weyn bay ugu fadhidaa dunida hadda maanta aan ku noolnahay xuquuqdooda kaliya inay soo dhacsadaan maahane meel walbay joogaan ayaga ayaa matala runtiina isbeddel weyn ku sameeya siyaasadda adduunka ka socota. 20 bishan Maarso ayaa heshiiskaasi ka kooban 3 qodob waxaa hore u wada saxiixday dawladda Soomaaliya iyo ururka shaqaalaha adduunka kaasi oo ka dhacay magaalada Geneva ee waddanka Switzerland. Cabdishkuur Ismaan Cali, telefishinka qaranka Soomaaliya, Muqdisho. kulan looga wada hadlaya waxyaabihii u qabsoomay wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee maamul goboleedka Puntland iyo waxyaabihii aan u qabsoomin ee haatan